فهمته ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنته ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفته فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربته فاضبه وقد الجد فيه فإن أعطاك والله انتفعته. munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayay qalinjibinta dufcaddii shanaad ee ardada farbarashada iyo kuwa dhammeeyey qowlkii eebe qur-aanka kariimka ee markaska duruusta islaamiga ee alhuda ayaa lagu qabtay xaafadda isli ee magaalada nairobi. munaasabadan oo ahayd mid si hersare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a ardada wax ka barata markaska, culimo, macallimiin iyo qaar ka mid a waalidiinta ardada. markaska ayaa waxa uu ka mid yahay kuwa ugu tayada wanaagsan ee barista culuumta islaamka kaasoo ku yaala xaafadda isli ee magaalada nairobi, iyadoona maanta munaasabadaasi lagu soo bandhigay waxyaabo kala duwan oo quseeya cilmigii ay ka barteen ardayda dugsiga, halkaasina lagu guddoonsiiyey ardayda shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan. qaar ka mid a ardada ayaa halkaasi ku soo bandhigay cilmigii ay ka barteen markaska islaamiga ee alhuda. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأس دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ذي النعم الوسيعة الغزيرة والحكم البهيرة الكثيرة ثم الصلاة ما أعسل من دائم على الرسول القرش الختم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل شك عنك ودرا ويكشف الحقا لذي القلوب ويوصل العبد إلى المضروب فاحرص على فهمك القواعد جميعة المسائل الشواذ. qaar ka mid a culimadii macallimiintii halkaasi ka hadlay ayaa fariin baraarujin iyo talooyin isugu jira u gudbiyey ardayda qalinjibisa iyo waalidiinta ardada. runtii waalidiintu way dadaalaan, ardaydana way ku dadaalaan, waa wax arday niyadda wanaajistaana uu ilaahay aakhiri adduunba ajri ka siin doona insha allah. waynu ku dadaalnaa iskuullada iyo waxaan adduunka, laakiin waxaa ka mudan qur-aanka in lagu dadaalo oo waqti lagu bixiyo oo muxuu ahaa ilmaha qur-aanka la xifdisiiyo oo diinta islaamka la xifdisiiyo. waxbarashada noocaas ah iyo ruuxa aakhiri adduun waafici. inaan isugu nimid maanta carruurteennii oo faraxsan oo qur-aanka qaarkood asaaskii hore ka baxay, qaarka kaleetana qur-aankii iyo culuumta kale soo bandhigeen. dhowr qodob yaan baraarujini anoo dheereeyeynin insha allahu. qodobka koowaad waa macallimiinta. waxaan leeyahay macallimiintaay waxaad gacanta ku haysaan waa carruurtii muslimiinta. wax muxuu ahaa waalidiinta beerkooda ka soo go'ay baa laydinku aaminay. waa inaad dadaashaan, ilaahay aad ooga cabsataan carruurta ilaalintooda. waa in marka hooyadana laga helo qalqaalada, aabbahana waxa qooritaanka laga helo, macallimiin qaari ahoo qur-aanka yaqaanana loo geeyo. cunug qaylo dheer inta hadduu isla helo qur-aanka cunuga uu barani. waalidiintana ilaahay ha barakeeyo, way dadaaleen iyaga laftooda oo waxaan quruxda badan inaan aragnay iyo qaabka loo soo dhisay iyo intii ay hadda qur-aanka inooga akhriyeen sida inoo qancisay aas-aaskooda waalidku ka yimid, macallimiintuna way ku dadaaleen. marka insha allah inay sii wadaan baanu kolley kula talinaynaa. qofkii wax garanhaya ee wax fahmi kara, sababtoo ah waxaan hor joognaa oon ka soo qayb gallay xalfad aad iyo aad u qiimo badan oo la soo agaasimay oo awlaadeennii loo qabanayo. waa inaan ka qayb qaadannaa, haddii laynoo yeedhana aan imaannaa. meelahan oo kale waa meelaha khayrka iyo wanaagga laga helo kale. waxaa ka mid ahaa ardayga farbarka ka soo baxaa oo haddana aadaa u
gudbaa inuu quraanka Allah subhanahu wa ta'ala u bartaa mudnaantiisa iyo qofka ugu horeeyo anfacayo waa qofka waalidka weeye ilmahaasi hadduu diinka Allah subhanahu wa ta'ala barto aakhiriya adduun ba adu ku anfacayo maamulaha markaska duruusta islaamiga ee Al-Huda Sheekh Cabdishakuur Badri Sheekh Ibrahim oo munaasabadaasi kelmad dheer ka jeediyay ayaa bogaadiyay tallaabada quruxda badan ee juhdiga leh isla markaana macallimiinta iyo markasku ku bixiyay waxbarista iyo soo saarista ardadan isagoo talooyin siiyo waalidiinta ardada hambali ayaan leenahay qodobka koobaad ardada wax iskugu jiraan arday quraanka dhameysay oo shahaado qaadanaya iyo arday farbarka dhameeyeen ardayda farbarka dhameeyay oo arday 19 arday ah kuwa kale ee quraanka dhameeyeen waa iyagana waxa weeye waa 3 marka 22 arday bay isku noqonayaan kulli way arki doontaan insha Allah shahaado iyo jawaa'is iyo kitaabo quraan ah ayaa la siin doonaa insha Allah ta'ala marka ardaydaas waxaan leenahay hambalyo dadaalka soo bixiseen saa u soo dadaasheen saa waxbarasho u soo wadeen waxa weeye waad ku mahadsantiin waxa kale oo mahadsan waalidkii ilmaha dhalay ee soo tarbiyay ee ururdayna soo kalihinayay ee waxbarasho u soo dirayay ee waxa weeye garab taagnaa iyagana aad u mahadsanyiin 100% laana waalidka dadaalkiisa haduusan jiri lahayn hadii ilmaha meel meena gaadheen cunug walba waalidkii ku dadaalo oo horay u wado oo amin hore kiciyo cunugaas meel gaara laakiin kan aan la kicinaynin ee laga dadaalaynin ee amin hore la toosinaynin ee amin hore quraac loo dubaynin cunugaas waxa weeye suu meel ku gaara meel fog ama uu ku dhameeyaa waxbarashada way adkaanaysaa way mahadsan waalidiinta aad u mahadsan yihiin waalidka ilmahooda ka warhayaan ilmahood ka warhayso waxa weeye waxay keenaysaa inuu si fiican wax u barto waa kii uu lahaa abshir bacadle ilaahu naxariiste ismu shahooda waalidkii iyo macallinka ayaa ilmaha maqana joogeeya ardayga waxaa maqana jooga ka dhiga waalidkii wuxuu ugu xisaaban yahay dugsi inuu jiro laga yaabaa inuu iska jiifo ama maamada shaqo aad musiiga shaqo aad cunugina uu sarata iskaga laabto marka waalidka waxa la rabaa in cunugiisa ka warhayo hatta hadduu maqan yahay inuu kala dardaarmo dadka guriga jooga oo inuu baxay oo aaday dugsigii macallinka la weydiiyo laakiin cunugii hadda soo dirto ama u dhaxda fadhiisto ama uu basarti gadaal intuu u laabto oo isgoglo oo iska jiifo adigina oo maranaysa inuu ku maqan yahay oo muddo saa sameeyo cunugaas dhaxdu ka baxaya macallinka inaad wada shaqaystaan yaa la rabaa ood ka warhayso cunugaaga inuu meeshii loo diray gaadhay Cabduqaadir Qayska Home Cable TV Nairobi Kenya waxaan halkan u joognaa inaan sii casriyeyno hanaanka maamulka iyo amniga gaadiidkaaga iyadoo la adeegsanayo adeegga ila soco ee shirkadda Telesom si dhow la soco gaadiidkaaga adigoo isticmaalaya moobilkaaga gacanta iyo kombiyuutarkaaga adeegga shirkadda Telesom ila soco fleet management wuxuu leeyahay adeegyo kala duwan oo loogu talagalay in lagu wanaajiyo amniga gaadhigaaga real time monitoring mar walba la soco gaadhigaaga meesha uu ku sugan yahay oo ogow inuu taagan yahay ama inuu socdo ogeysiiska badbaadada haddii uu gaadhigaagu socdo waxaad si fudud ula socon kartaa xawaaraha uu ku socdo adeegga casriga ah ee shirkadda Telesom ila soco waxaad awood u leedahay inaad meel fog ka damiso gaadhigaaga si aad u badbaadiso baaburkaaga si fudud ula soco haddii gaadhigaaga shidaalku ka yar yahay iyo waqtigii ugu dambeeyay ee saliidda laga bedelo intaa waxa ku dheer in shirkadda Telesom ay kugu diyaar yihiin tiim si joogta u dayactiraya wixii dhibaato iyo mashaakil ee aad la kulantay intaad adeeganayso si aad baabuurkaaga ugu xidhato adeegga ila soco fadlan garaac lambarka gaaban ee 382 ama taleefan lambarka shaashada ka muuqda taya waa Telesom